macallin dugsi quraana la dilay, dhakhtar ayaa la dilay, isku meel ayaa lagu dilay. weliba rasaasta lagu dilay iyo sida loola dhacay iyo sida loogu galay waa si xad dhaaf ah. weli meydkooda banaankooda yaala si loo dhaqo ayaa la laayahay. waxaasi maxaa ka dambeeya? waa lacagta maalin kasta la shubayo ee akoonnada lagu shubayo ee hoteelada lala joogo oo lala taagan yahay, oo ciddii rasmiga wax ugu dhaceen oo dhibanaha ahayd aysan ama joogin ama si afduub ah oo aysan raalli ka ahayn wax lagu wado, iyo ciddii dhibka geysatay oo la rabo in la bari yeelo wixii ay sameeyeen lacag lagu dhaqo. bal cidda laga akhrisanayo yay tahay? maanta runtii waxa aan ka caraysanahay ama muuqaalkan aan rabo inaan u soo gudbiyo waxay tahay waxa dhacaya maalin waliba oo laga yaqyaqsoodo oo foolxumada ah oo urkutaalada ah oo tiiraanyada ah oo sii badanaya oo marba marka ka dambaysa meel xun laga darsanayo. dhakhtarkii ayaa la dilay, macallinkii dugsiga quraan ayaa la dilay, carruurtii ayaa la dilay, haweenkii ayaa la dilay, ganacsatadii ayaa la dilay, culimmadii ayaa la dilay, haldoorkii ayaa la dilay, dadkii bulshada laga fiirsanaya ayaa la dilay. war waxaanay xaggay u socdaan? cidda maanta aan la hadlayo waxa ay tahay wax inaan isu qarino maahan. runta haddii aanan sheegin waxa aan sheegno waa been, waana midda dhibaatada keenta. cidda la yiraah cayr dhibka idinku dhex jira inta fariisataan meesha la idinkaga yimid bal horta raadiya. waxaan idinku dhex jiro sidii maaragtay subayn madaxa laga sixray saas iska kindaba wareejinaya, bal horta ogaada meesha la idinkaga jiro, ogaada meesha la idinkaga yimid, ogaada. waxay ku leeyihiin maalin kasta waxaani xaq maahane waa xal. war xaqa ayadoon la helin oo aan meeshuu jiro looga daba tegin xal maba imaan karaba. dhibaataduna halkaasi ka timaado. gacan ku dhiigle waxa weeye jaahila, wax uu kala ogyahay la arkin, yaa qorigiisa soo cabaysanaya, dad aan waxba gaablasan uu ku jeexaya. dhakhtar uu dilaya, macallin uu dilaya, carruur uu dilaya, haldoor uu dilaya, ganacsato uu dilaya, culimo uu dilaya. xagga uu ka baxa jaad iyo tubaako iyo sigaarad u qaadaysaan. haddana lacagaad soo qaadaysaan, hoteellaa imaanaysaan, xalaan gaarna ayaad leedihiin. qorigan waxa waaye waa qorigii furka ama dilka. joojiya. kitaabka ilaahay wax aadnaan marsiin ama aadnaan ku dhaqin ama aadnaan waafajin, wallaahi billaahi tallahi inaysan soconin, xalna aan laga gaarin. sidaasaadna maalin kasta u taagnaanaysa. dhaqanka iyo siyaasadda ha isku qaldinina, dib u heshiisiinta iyo siyaasadda iyo xilalka lahay ha isku qaldinina. arrintan daacad ha laga noqdo. dadkii falkaasi geystay oo xalay waxa weeye ilaa hadda meydkoodii nimankaas bannaanka yaallo masaakiinta waxa waaye dhakhtar uu ahay, dhul kaloo ka yimid, dad uu Soomaali sheegtaanuu ka imaaday, wuu ku nabad qabay, waa ku ammaan qabay, halkaasuu joogo. ummadda wuxuu u dhexeeyay ummad uu daweynayay muslimiinta, gaar ahaan ummadda Soomaali. kanuna waxa waaye carruuroo waxbarayay, uma kala socnayn, reer hebelna waxbari mayn, diinkii ilaahay ayuu faafinay. baaridkooday u imaadeen, bal waqti la soo qaata, waa loo yimid, waa lagu jeexa, waa lagu faarujiyey rasaas qasnadihii, waana laga tegay. si loo dhaqo iyo si loo kafano iyo si loo aasala laayay. ummadda waa yaabantaa, dhaforada haysataa. wallaahi billaahi tallahi cayro sidaasad weligiin dhaforada u haysanaysaan. waxa aan maanta la hadlayana waa idinka. muuqaalkan sheergareeya oo gaarsiiya qof kasta oo caqli leh oo ciddaasi ka tirsan. waran inta fariisataan oo xal raadisaan waxa idinku habboon iyo waxa arrimahaas oo kale loo gudbi karo samaysta oo jeexda oo cidda ehelka u ah ha looga dambeeyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. maanta waxaan halkan usoo fariistay waxa ay tahay aan rabo inaan uga hadlo arrimihii qaabkii wariyanimada maanta waa ay ka tagtay qaab cad oo waadix oo dadku isla fahmayaan inaan wax isugu sheegnaa rabno. waxaan maalin kasta dhacaya oo deegaanka ka dhacaya oo weliba qaasatan ciddan ku dhacaya la yiraahdo cayr waayo waxaan maanta halkan usoo fariistay inaan ka hadlo. shalay ay ahayd markii geedka hoostiisa quraca hoostiisa lacagta lagu kala tirsanayay odayaasha iyo ugaaska iyo ay taagnaayeen. dadaal la muujiyay ma xuma, laakiin waxa guntooda iyo salkooda meesha ruudkooda in la gaaro waayo. xalana wixii dhacay waad ogeydeen. mooyaysan taasi muujinin lacagta la bixinayo maalin kasta inta doolarka la kala tirso akoonnada lagu shubto dee abaalmarin maysa u dhigmayn. nin kasta wuxuu leeyahay sidaasaa lagaaga bixinaya. waxaa laga yaabaa xalay kii wax dilay rasaastii ka dhacday inuu isleeyahay waxa weeye xageed ka soo cabaysataa. waxaad aragteenuuna sameeyey. allahiin hadduu leeyahay nimankaas ciday rabaanba ha ahaadeen markii la soo qabto sharciga islaamka ha la waafajiyo. ninkii dhalinyarada ahay oo ninka kala gurceel bartankeeda ku dilay sidii looga dhidhiyay ha loo soo qabto, tiirka ha la keeno.
bal adinku sheega badbaadada iyo waxa uu idiin galo iyo nacfiga aad ka helaysaan ninka macalinka dilay, dhakhtarka dilay, culimada dilay, caruurta dilay, haweenka dilay. waa birmageydo, waa dadkii la yiriyaan la taaban wax kastoo idinka dhaxeeya qoladooda. ay hebel awaanin iga dilay, reer hebel ninka soo dilay, qofka uu indhaha dam war indhaha alla idinka ridiyay. xaajadan ha laga dhigo sidii qoraahdii ahayd allaha u naxariistay maxamuud sabriye, xaajo sidii daba eri haddaan loo feydin ma samaato ha laga dhigo. hana la joojiyo qoraahda ah oo cusub oo hadda la keeno hoteelada iyo lala taagan yahay oo waxa weeye lacagta lagu kala tirsanayo oo ah waxa weeye xaq maahane waa xal. xaqoon la gaarin xal ma imaan karo wallahi billahi taala inuu sameeyo karin. muuqaalkan qaad ee sheer garay cid kastoo quseeyo oo sama jeclaha oo arrintan ka damqanaysa gaarsii aan u tacsiyeyno allaha u naxariistay labadaas nin oo dhimatay oo waxa waaye sida qaladka ah lagu dilay. waa la gardarnay, gacanka xaq darana dishay, wax ay biyeen ma jirin. ummadda bulshada indhaheedii ahaayeen waxa weeye dee si qaldanana lagu dilay. in rabbi jannadiisa firdawsi uu geeyo aan ugu duceyno dhakhtarka iyo macalinka, macalin liibaan iyo doctor axmed, rabbi ha u naxariisto. eheladiina samri ibaan allah ka siiyo. wallaahi waxa aan maanta dareemayo waxaa dareemi kara qofka ka warhaya waalidkii dhalay, eheladii iyo dadkii ay intaas wax usoo baranayeen iyo dadkii ay wax barayeen iyo dadkii ay shaqada u hayeen ayaa dareemi kara. maantana wallaahi dhiigaygu 100% mara, waana waxa dhacaya ayaan ka aamusi la'aan. maalin kastana uu dul dhacaya, dhigaheenu maqlayaan, indhaheenu ay qabanayaan, waxbana aanan ka qaban karin. xalkana meesha uu ku jiro waa la yaqaani, hal la aado yaan la iska daba wareegin sidii waxa weeye mas madaxa laga dilay iyo waxaan idinku dhex jirin barota raadiya. quraan akhrista, duco, isu imaatin iyo calool fayoobi wax ku wada wada. haddaadna intaas aadna ku wada wadeen waxa isu sheegtana waa been iyo baadil iyo wax aan waxba ka jirin oo raqiis ah. muuqaalkan shaqo kuma leh siyaasad, shaqo kuma leh dawlad, shaqo kuma leh cid kale. cidda uu quseeyo ha la gaarsiiyo. cid kasta oo ka damqanaysa oo ka dhaxaysana ha la gaarsiiyo oo wax ka qabanaya arrintaas oo dal iyo dibad joog. kaliya waa ka naxa iyo waa ka tiiraansina maahan, ficil ha la muujiyo, hana la yimaado. markaad adinku wax jeexataan oo ballan meel dhigataan oo kii xaq darro wax ku dilo tiirka aad taagtaan cidna aadna uga aabayeelin, wallahi adinkuna waa kala nabadgelaysaan, ummadda kalena waa idinka nabadgelay, adinkuna waa ka nabadgelaysaan. dadka masaakiinta inta bartamaha laamiga lagu dilo la soo istaaga la leeyahay annagaa dilno, annagaa ka dilno. war adinku yaa tihiin ninkan annaga dilna marka inta tira xagga aad fariisido waxa waaye ninkan Allah iyo rasuul ka furtay oo jaahilka ah oo wax u qiimeysan iyo wax u qorsheysan midna aan aqoon. ummadda qiimaha lahayd oo intaas lagu soo tiray tacabeelay oo qarashka iyo waqtiga lagu bixinay dadkii u adeegay markuu dilo aad leedahan annagaa dilin. waxaas xaqna maahan, xalna maahan, wax lagu sii socon karo iyo wax la wadi karana midna maahan. arrintan waxa laga bedelo. waana mahadsantihiin. muuqaalkan iga sheer gareeya, meel dheer gaarsiiya, page-ka soo follow gareeya, youtube-ka channel-ka soo subscribe gareeya. mawduucyada noocaana waa badi doonaa, waana ka hadli doonaa. cid kasta oo ehel u ah ayaana halkan keeni doonaa, waana ku falanqayn doonaa. meesha boogta ay ka qurunsan tahay oo u baahan in la dilaaciyo ayaana soo bandhigi doonaa. cida uga xishoonaynana malaha. waxa weeye runta in la isu sheegaan la rabaa. runta la isu sheego waxa weeye iska daba wareegga iyo lacagahan akoonnada lagu shubayo iyo waxaan hoteelada la taagan yahay hal la joojiyo. ummadda wax kale celiya loo keeno. tiirka markii la geeyo kii wax diliba oo ku qoos qaato mid kale wax dili ma nin rag dhiigiisa ma mara ayaa leh. dadkaanuna waxa weeye ma xishoodaana waa cabsadaan. qof aan cabsanna cid oo dhaafa ma leh, qorigiisa deegta u suran yahay ee hawdka iyo duurka gala. laamaha amnigana waxaa leenahay iyo maamulada Dhuusamareeb iyo Gurceel iyo Ceel Dheere sidii shalay loo guntado kale oo ninkii bartamaha ku dilay ninka Gurceel ee loo qisaasay oo 3-4 maalmood qaadatay sidoo kale hal la sameeyo, hana laga xaq sooro, yaana cidna loogu aabayeelin. ninka dhakhtarka dilay, macallinkana dilay, cid uu dhaafa mala noloshiisuna maanta cayrna wax uma gasho, cid kalena wax uma gasho, cid wax ugu fadhisana mala. asna xaqaha laga oofiyo. waxa weeye kuwii oo xaq darrada ku dilayna cadaalad ha heleen, ummaduna ku nabad gasho, hana ku kala badbaado. waana mahadsantihiin page-kaana iga soo follow gareeya, meel dheer gaarsiiya muuqaalkan, youtube channel-kana soo subscribe gareeya. waana mahadsantihiin.